haddaad maqli jirteen dowlad heblaayo iyo dowlad heblaayo ayaa xiriirkii isu jaray diplomatic tied haddaad maqli jirteen waxaa la yaabana wasaaradihii maaliyadda ee maamul goboleedyada ayaa xiriirka u jaray wasaaradda maaliyadda federaalka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. saaxiibayaal soo dhaweynaya marka hore marka xigta dowlad goboleedyadii dalka wasaaradahoodii maaliyadda ayaa xiriirka u jaray wasaaradda federaalka. fajac iyo liyaab ay noqotay markii siyaasadda haba la dhahabo federaal oo wadanka maamul goboleedyadii iyo dowladda dhexe si guud ayaa loo wada shaqeynayaa oo si guud ah loo wada tashanaa. taas waa caadi, wadanka waa federaal. wixii go-aanas oo masiiri oo la gaarayo madaxda madasha qaran maamul goboleedyada dowladda isaga imaanaya waa arki jirnay oo haddana way dhici doontaa, waana arki doonaa. marka waxaan weli dhicin marka ilaa hadda aan arkin inta aan soo joogniyo federaalka inta la sameeyey ani kulli ma arkin. haddii hadda ka hor aan soo dhacay laakiin dhacdadan iyo cusub waxaan la yaabay marka waxay ahayd madaxweyne xasan markii la doortay socodkiisa wuxuu ka bilaabay maamul goboleedka koonfur galbeed, wuxuu ku xijiyey mudug, ku xijiyey puntland shalay joogay madaxweynaha. okay, haddii madmadow ay jireen oo wada shaqeyn wasaaradaha ama dowladda iyo maamul goboleedyada hadday tahay, hadda puntland oo kale madaxweynaha markuu joogay eedan fara badan oo ilaa 4 gaar ay u jeediyeen mashaariicda oo caalamka laga helo, waxbarashadii, ciidamadii amniga ay noqon lahayd in wax walba saami ay ku hesho mashaariicdii ku xid in waxaasna saami ay ku hesho puntland. waxyaabo saas wasiir hadlay BBC da waxaas ka hadlay. okay, madaxweynihii jooga puntland ishaas ay hawada marinaysa wasiirada mid kamid arrintaas hawada marinaya. waxaa marka taas ka fiicneed inuu kala dhiil galay madaxweynihii yaaba meeshii joogo goboleedkii joogo oo caasimadii garowe joogo, markaas inuu kala dhiil galayaan saas ugu fiicneed intii ay bulshada la wadaagi lahaayeen hawada ay mari lahaayeen. ayadoo madaxweynihii meesha uu joogaa arrintaas ay imaanaysa. haddana arrintan kale oo wasaaradaha inay maaliyadda ay xiriirka u jaraan waxay imaanaysaa iyadoo madaxweynihii daraad uu joogo koonfur galbeed, galmudug uu joogay, puntland oo shalidan ka yimid safarkiisii imaad arrintan oo kale fajac la yaab ah waaye. madaxweynaha meel uu tegin hadda waxaan u malaynayaa weli hirshabelle ka jiro. okay, madaxweynaha markuu baydhabo joogay wax lagala hadli waayo, ilaan madaxweynaha markaas xukuumad lama soo dhisay. markuu galmudug joogo wax lagala hadli waayo, puntland markuu joogo wax lagala hadli waayo, muqdisho markuu yimaado warqadan fadhiinayso laga daba keenayo maxay tahay? waa su-aal dib aan idin celinayaa. dowladii hore wasiir bayle maaliyaddu joogay ayadoo jubbaland iyo federaalka ay qir iyo qir u kala marayso oo laismari la-yahay oo arrimihii siyaasadda laisku fahmi la-yahay oo ay bahasha madaxa iskula jirto oo bayle intuu dhoofuu tagayo kismaayo isagoo uga gon lahaa in arrimaha maaliyadda dalka aan madmadow laga sheegin si dayn cafinta oo dalka يعني ذلك العقان يقول له سنة ولا عفين. مركب مالية إنه هل مر لما السياسة ديني وزير بيل مال والبق وهذا شقين كلا حيث أساس وبتجاي أساس ومسوق. مركب أنا جا مركب كودنا هان يكدولة فدرال هان يكمواد الصومالية هان وحنا قلنا معي الدنيا دي شري يعني توقع إيه معمل قبلات دي الدولة اللي حق وهذا شقين في عمليين بوف والبوحي أداء عالم بس في عن الله قيب صدق حالك اوكي وياهي وبقي قيمتيس اي تاهي وحي كالو ايغانا لسلا تفتفاي لسلا تفتفي جري ان ما اي دحانا وزارة مامل قبليدادا wax wada shaqeyna nagalama dhaxayso wasaaradda federaalka waxay qodax ku sii dheereynaysaa annaga Soomaalida qodax ku sii dheereynaysaa waa waxa istaagayo nidaamkii deyn cafinta dalka ay istaagaan sida caadiga ah saas waa maxaa yeelay markii lagu deyna laga cafinaya sidaan wax u bixisaan u soo qurxiya lagu leeyahay waxaa la fiirinayaa deeqaha caalamka lagu sii meeshaad marinayso in maamul goboleedyada yani saamigooda aad siinayso in wada shaqeyn ixtiraam annaga dhexdeena ay naga dhaxayso. inta haddii la waayo waxaa caqabad noqonaysa marka deymihii nagala cafin rabi dib ay u dhacaan ama bil ama beri ama sanad wixii dib u dhacaan. haddii aan soo koobo marka hadalkayga oo dhan wasaaradda maaliyadda sawirka guud ee arrintaas ay muujinayso waxaa waaye haddii deeqa caalam ahaan leed, haddii wax kale ahaan leed, haddii wadamada yani kabka nasi ahaan leed, wixii dhammaa in maxaa ku yirahdaa ay istaagaan hannaankii maaliyadda dalka inuu qalqalo oo karays ku imaado istaagto. arrintu waa koob. waa labo, haddana waxaa kaloo sawiraysaa arrintaas taas ah in maamul goboleedyadii iyo dowladda dhexe wada shaqeyn toos inay lahayn. taas ayadana waa sawiraysaa maxaa yeelay shaladaa tan madaxweynaha wuxuu joogay maamulada dalka beela kamid ah uu joogay waxaasna waa lagala hadli karaa. okay, waxaa kaloo sawiraysaa ayadana oo ah laakiin mid kaftana uu ku daraayo maamulada maadaama intooda ka horeeyeen dowladda cusub dhalashadeeda ay waabsanayaan dowladda dhexe iyo wasaaradda maaliyadda si ay u shaaftayaan. marka waa mahadsantihiin, dowlad si fiican ula shaqeeya way cusub tahay
haruufka ha laga daayo. Puntland xoogaa way soo haruuftay. Cabdicasiis lafta garadaasin ciidan fara badan oo meelaha soo bandhigaya asiir haruuf kale waaye. Marka haddii Hirshabelle iyo Galmudug soo darsadaan faraha kasii bixisaa. Warna saaxiibada wadin salaam ah ku dheeraada fiidiyoga aad iyo aad u mahadsantiin. Page-kaas Xoqsan Media halka kale. Aad iyo aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum.